السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baan u salaameynaa walaalaheena Soomaaliyeed ee ku xidhan channelkeena Axmed Daawud channel. runtii farxad bay tahay inaan mar kasta muuqaal xiiso leh aan idiin soo tabino isla markaana program kasto aanu leenahay aanu idiin soo gelino channelkeena. maantana wuxuu kamid yahay mid kamid ah barnaamijyada aan idiin soo tabin doono. runtii xaflad aanu qaban qaabinaynay baa jirtay isla markaana maanta aanu iba furi doono xafladaas oo markaa xariika jarka xarun cusub oo aynu soo kordhinay insha Allah. aad baan ugu faraxsanahay inaan muuqaalka idin la wadaagno nala dhameystay insha Allah. soo dhawaada channelku waa channelkiini noo saar insha Allah subscribe dad kale badan sii gaarsiiya waa mahadsantihiin. dhalinyaro meel aad baan idin salaameynaa meel aad joogtaan dal iyo dibad. qorshahan in badan uu soo socday waana waxaan la koosanay waa bishii koowaad iyo sanadii 2023 waa qorshe hore loo soo dejinayay. dhamaantiin waxa in leeyahay xalfado badan oo idinkoo manager ah oo xubinka ah company-ga baa idin sugeynaa insha Allah. walaalkaa soo dhawaada insha Allah muuqaalka nala daawada. waxaa sidoo kale nagala soo qayb galay xafladeena qiimaha leh marti sharaf runtii aad iyo aad u qiimo badan oo ugu horeeyo gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka Maxamed Xaashi Cabdi iyo waliba xubno kale oo ma sha Allah marti sharafa. sidoo kale waxa isaguna nagala soo qayb galay barasaabka gobolka Hawd oo isagana runtii nagala qayb galay xariika jarkii iyo xariika furistii xarunteena cusub. waxa kale oo jiray runtii leedaradii company-ga oo dhameystiran oo iyaguna qayb ka ahaa xafladaas iyo ma sha Allah xariika jarkaas xarunteena guud ee dhexe marka ku taala magaalada Hargeysa oo meel aad iyo aad munaasib uga in lagu shaqeeyo oo aad u qurux badan. waxa isaguna madasha xariika jarka ka hadlay oo isaguna inoogu furay ma sha Allah soo dhaweyntii ranna u sameeyay marti sharafta leaderkeena guud ee Geeska Afrika Dr. Axmed Maxamed Cali oo isaguna halkaas kaga waramay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay company-geenu isla markaana ka sheekeeyay waxtarka iyo waliba faa'iidooyinka uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed xagga caafimaadka quruxda iyo waliba dhaqaale ka sameynta company-ga oo runtii aad iyo aad ugu nuxnuxsaday. waxa sidoo kale uu kaga waramay inay u furan tahay qof kasto danaynaya inuu runtii bedelo noloshiisa isla markaana uu ka hawlgali karo ganacsigan Forever Family meel kasto uu joogo walaalaha Soomaaliyeed rag iyo dumarba. waxa isaguna runtii madasha ka hadlay oo isagana aan ku soo dhaweynay mudane Maxamed Xaashi Cabdi oo isagana aan halkan idinku soo gudbin doono insha Allah codkiisa dhageysi wanaagsan. ugu faraxsanahay inaanu idinla wadaagno horumarkan iyo dareenkan fiican ee dhalinyarada ka muuqda. kama bay hayeen cashuuri baa laga saamaxay waxa la yidhi wax abuuri karaa waa inuu hawlkar yahay oo karti leeyahay waa inuu hami leeyahay wax xambaarsan yahay. maqaaxida Jabuuti raggaa wada tegay daaraha waaweyn Jabuuti ka dhisay xilligii Faransiisku haystay maqaaxida ka shaqayn jiray ama bidhar kooy ka shaqayn jiray weelkay meeyri jiray markii noloshooda maalmareeyeen markii damaan waxay ku urursadeen bay wax sameeyeen halabuur bay la yimaadeen wixii ay u barkay horay mariyeen waa kuwa maanta dunida oo dhan gaar ka dhisay